محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقت عقابا قف ولي بمجلس أي منصب كيس أيام كسلامي تمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب رمضيات كان تو سؤال دونا ما دام الجو حل عفرة ووقته ودعيه شركة أي كتشجع دلوين تهويه ورمضيات شروينا أي كقيب جلان قضياش رقمك حبنا كتير سن ميدو مرشحين تا اللي بانا كتير سن لبعض أقل برلمانك اللي بانا كتير سن برلماننا دقل ملوك يهير شبيلة أغني هنو هوان يدلني يرو كسو جيدا داش هوية أيها لوغا هالله حالة دكتا جندالك يحل جنك الكوركا شروينو وحو اسكو راعي قد بدا صوصال كو إن الشرع دورتها هاي مدكرر سيجا حلوانا كتير سن قولها شعب برلمانك مدحلات كيسو دمادي يقو كرديين مدحويني هوري مدحلات كيسو دمادي إيادونا اسكو كرديين مدى لبا سنة سيدا زراد شروينه وما أقون سنة محمد عبد الله فرماجو مدحوين الصوماليين لابو إن سيك دق دق لوغا لابتو قوان كمدكرر سيجا شرع درده شروينه ونوحكو أدكينيا إنو ودك كستو lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin. saddex in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17 Sebtembar waxaan ku baaqaynaa in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu cadeystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah. afar shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna caddaynayaa in mas'uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddaxileedkiisu dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka. shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaar ah loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliska oo si gaar ah ugu howlan fulinta ajandaha muddo kordhinta. lix shirweynuhu wuxuu cabbaaraynayaa mowqifka qaar ka mid ah dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo. shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka Soomaaliyeed ku metelin go'aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si degdeg ah uga laabtaan go'aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas'uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu. toddobo shirweynuhu wuxuu u mahad celinayaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaal midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ah ee dalkeena ka hana qaadaysa. sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta AMISOM inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddaxileedkiisu dhammaaday kaasoo ku howlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed. sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca إذا السياسات كسوجرين ee xukunka sida nabad ah la isku wareejinayo 4 sano mar taasoo u dhaxaadu ah dhismaha nabadda iyo dawlad dhiska dimuqraadiga ee dalka ka xana qaad. toban shirweynuhu wuxuu uga mahad celinayaa beesha caalamka dadaalada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. aad iyo aad u mahadsantahay.